بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله كسو دوادا لوكي لوبانتا أما Land of Frankincense magacayga waa Sucaad Maxamuud Cali waxaan rabaa halkaan maanta inaan kasoo gudbiyo barnaamij ku saabsan digniin oo aan rabo inaan usoo gudbiyo dadka Soomaalida walaalahay ah meel walba ay joogaan inaan oga digo wax aan isleeyahay waa mushkilad ku soo socota oo u baahan in ay ka hortagaan ama ay iska ilaaliyaan insha Allah taala marka digniinta waxay ku saabsan tahay waxaan ka warqabnaa sanad iyo xoogaa adduunka waxa socda wax la yiraahdo coronavirus iyo covid-19 taas oo aad hadda yani u saameysay dhinac walba nolosha dadka bini'aadamka meel walba ay joogaan ha ugu badnaato dadka magaalooyinka waaweyn degan aad bay u saameysay waxay saameysay oo kale businessyada ay saameysay tijaaradii dadka dhaqaalihii dadka yani waxay meelo badan ayay taabatay ama safaradii ha noqoto ama meelihii dadka ka shaqeyn lahaayeen waxaas oo dhan kulay waa wax dadka oo dhan ay ka warqabaan marka maadaama ay adduunkii oo dhan uu arrin wada saameeyay uu noqday oo hadda dadkii oo dhan ay ka wada hadlayaan oo arrin maaragtay adduunka ku soo kordhay uu yahay waxa marka aan rabaa in aan ka iraahdo waxaan la yiraahdo coronavirus ma rabo inaan ka hadlo viruska isaga laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yiri waa laga hortagayaa oo ah talaalka ama vaccine-ka la soo saaray corona vaccine la soo saaray ayaan rabaa inaan ka hadlo arrinkaas oo aad aan wax uga baaray aan u maleynayo saacadan wixii ka dambeeyay inaan ku qasbanahay inaan soo gudbiyo waxa ila tahay anigoo maaragtay u soo gudbinayo yani aan tariiq yani digniin ama way of inaan dadka uga digo ayaan u soo gudbinayaa insha Allah marka kulay dadka intiisa badan waxa way ka warqabaan ma rabo inaan isaga laftirkiisa ka hadlo laana waa sheekada way dheeraanaysaa laakiin waxaan rabaa vaccine-ka inaan maanta ama talaalka loogu talagalay inaan ka hadlo oo ah marka talaalkii ayaa rabaa inaan ka hadlo maanta oo aan isleeyahay macluumaadkan waa loo baahan yahay insha Allah hadda ka hor waxa jira barnaamij aan ka hadlay talaalada aan uga hadlay si oo general ah oo macluumaad guud uga hadlay يعني إن ويهاي أصلاً تلالك مشكلة وين وأدوك كوسو كورداي مالكي لكياني مادام أنا عن هاي ضد مسلمين أو يعني civilization كان وكهري أما البحنمة ده إنه كهريسي البحنمة ده يوروب أد وكهريسي يعني أو علمي ده ودن أدوك وكيم الإسلام ك أنتي سبدن مادام أن أبنهاي علم كسليسن إنه يهي علم حقيقي وقرآن كقرآن النبي وحده بري صلى الله عليه وسلم مكساس درتاد انتهر تاريخ زمان تو حواي سجالكي شعبان رمضان كبيش الدب إله بالسلامة هنو قارسية إله أجر كذا هنو سهله بيشك قال لنا وحواي لبي لواتن بيشي سدحاد لبي لواتن كبيش سدحاد لبكون من 2021 يعني 2021 marka maanta waxaan rabaa halka inaan ka soo gudbiyo taariikhda vaccination iyo waxaas insha Allah badana ka hadli doona laakiin barnaamijkan waan kaga hadlay oo hadda YouTube ku jiro ee Facebook laakiin maanta waxaan rabaa si gaar ah inaan uga hadlo coronavirus vaccine-ka loogu talagalay ilaa hadda dhowr company ayaa soo saaray kambaniyadaas haddana waa kambaniyo magacyo waaweyn leh dadka kale way ka warqabaan ma rabo inaan waqti isaga dhumiyo laakiin basically waxaan rabaa inaan dadka kala hadlo waa maxaa laga sameeyay vaccine-ka coronavirus loogu talagalay muxuu kaga duwan yahay talaaladii hore la arki jiray dhibaato ma u keensanaya dadka intee la egta dhibaatadaas يعني intay muddo gaari kartaa dhibaatadaas inay qofka daba socoto
waxaas oo dhan inaan ka hadlo marka waa wixii ilaahay iga waafajiyay insha Allah taala cilmiga ma dhamaado wixii aan soo aruuriyay oo aan isleeyahay waa lagu bilaabi karaa laga yaabo inuu barnaamijkan noqdo kii koowaad oo kii labaad iyo kii saddexaad marka aan ku daro insha Allah laakiin hadda kulay macluumaadka igu horeeya raba inaan ka soo gudbiyo haddaan taariikh ahaan ugu noqono talaalada sidii waagii hore loo sameyn jiray waa waxyaabo aad iyo aad aniga uga soo horjeedo aniga ahaan shakhsiyan waxaan ka soo horjeedaa talaalada sidii loo sameeyo inay dadka ay u baahan yihiin in kale taas ayaa aniga yani aan ka soo horjeedaa inayna dadka talaalo u baahnayn ayaan aaminsanahay marka kulay qof walba wuxuu leeyahay fikradiisa يعني يجوانكيسا waxa uu sidoo noloshiisa ka dhigayo marka ani waxaan aaminsanahay talaalka inuu aslan uu mushkil yahay oo hatta waxyaabo islaamka ka hor imaanaya ay ku jiraan marka baabkaas dhan waxaan jeclahay aniga inaan iska soo xiro marka taladeeda waxay ku bees gareysan tahay qof ka soo horjeeda talaalada ayaan maaragtay aniga aan rabaa dadka inay dareemaan ina ahay oo meeshaas ayaan ka imaanaya marka anoo talaalada ka soo horjeeda ayaa hadda mushkilada ugu horeyso aan arkay waxa taagan haddana hor taagan yani mushkilada ugu horeysa ma aha mushkiladaha way badan yihiin bini aadamka maanta ku soo wajahan ama ay ku jiraan oo mashaakilada diintooda ka hor istaagayso oo akhlaaq xumada iyo dhibaatada dhacday iyo in maaragtay diintii dadka ay ka sii tagayaan waxaas oo dhan waxa keenay waa nidaamka cusub oo dadka la geliyay 100 sano markay ugu yar tahay 50 sano ugu dambeysay marka wixiina hadeen aan u jeedno diinteeni iyo akhlaaqdeeni iyo caafimaadkeeni iyo nolosheeni inay naga sii socoto waa inaan isweydiino maxaa keenay marka waa in la isweydiin karo marka siyaabaha hadda raba inaan uga hadlo awalan taariikhda ay soo mareen medicalka ama medicine systemka oo westiga uu leeyahay waa waxyaabo aad oo yani waxa ku jira taariikh mugdi ah ku jirta aad oo yani dhibaatada u badan tahay marka dhinacaas laga hadlo experiments badan ayay sameyn jireen oo dadka bini aadamka u daran laakiin kulay way ka soo gudbeen marxaladaas hadda marka experimentigii bilowday mar alla markay daawooyinka soo bilaabeen sameynteeda 150 sano ka hor ilaa hadda experimentigu uu socdaa ama tijaabadii dadka lagu tijaabinayay wali way socotaa waagaas laakiin way ka sii dhibadneed tijaabada dadka sida loogu tijaabinayo aad bay u foolxumeyd laakiin hadda yani xoogaa civilized oo kale ilbaxnimo in la gaaray waa la soo fudfudeeyay dadka inayna dareemin in inta dhibaatada la eg tahay ayaa waxa laga shaqeeyay experimentigii ayaa la qurxiyay ama laga dhigay wax oo qofka uu qaadan karo ee u sahlan in uu accept gareeyo qof maaragtay hadii la yiraahdo waxana lagu tijaabinaya waligiis uu ka cararaya laana naftiisa muhiim u ah laakiin hadii la yiraahdo waxaan magac kale hadii loo sameeyo la yiraahdo kan iyo kan sidana yani waxaan ay ku anfacayaan waxa laga yaabaa inuu isweydiinin waxaan inay wax dib la yihiin marka mushkilada halkaas marka waxaan arkayaa yani